runtii waxaana wanaagsan dhammaan bahda ku xiran janalka kulmiye technology koorsadan waa koorsadii C++ cashirkuna waa cashirkii 16 maanta waxaan doonaynaa program yar in la wadaago tusaale macalinka oo kale ayaa wuxuu ku dhahay waxaan kaa doonayaa inaad samayso program qofka weydiinayo inuu soo geliyo tiro weydiinayo kaasoo 5 mar weydiinayo inuu qofka tiro soo geliyo kadib waxaan kaa doonayaa inaad tiradaas isku darto kadibna wadarteeda aad ku soo bandhigto shaashada adigoo isticmaalayo while balan isla aragno programkaas marka ugu horeyso waxaa qabsanaysaa hal variable kaasoo la dhahayo raadi tiro tusaale aan iska dhahno oo la egyahay eber kadib waxaan leenahay while raadi tiro inta ay ka yar tahay 5 waxaan dhahaynaa raadi tiro waxaan hore ayaa u soo qaateen waxaan rajeynaa fahansantiin wuxuu la mid yahay raadi tiro plus 1 waxaan rajeynaa tutorialkii hore aad soo fiirsateen xalaan tutorialkii hore aan kusoo qaadanay balan probeno inuu raadi tiro soo baxayo 5 jeer balan fiirino sidaad u jeediin koodkeena waa 1 2 3 4 5 koodkeena waa loopkeena wuu shaqeeyay balan qofka weydiino inuu soo geliyo tiro si qofka isticmaalaha computerka si aad tiro ugu soo qaado waxaad markasta isticmaalaysaa siin kaasoo ah kasoo qaad qofka isticmaalaha computerka tiradii aan kasoo qaadno waxaan u baahannahay inaan variable ku xarayno balan qabsano hal variable kadibna aan ku shubno marka aan ku shubno balan aragno si aad jeedin wuxuu ku leeyahay fadlan geli tiro waxaan gelshay 2 waxaan gelshay 3 waxaan gelshay 4 waxaan gelshay 5 sida u jeedin programka wuxuu weydiinaa inaan gelsho 5 jeer tiro sida u jeedin maxaa kale oo yiri wuxuu yiri program qofku weydiinaa inuu gelsho 5 jeer tiro adigoo isticmaalayo while loop base waxaan noo dhiman hal meel kaasoo ah wuxuu dhahay waxaan kaaga baahanahay inaad tiradaas ay gelsheen dadkaas aad isku darto wadartoodana aad ku soo bandhigto shaashada saan iskugu darno waxaan u baahanahay hal variable aan ku xareyno wadartii noo soo baxday waxaan qabsanaynaa hal variable kaasoo la dhahayo ولا مديان لنا ever sida caadiyan kadib waxaan qabsanaynaa waxaan leenahay wadarta tirooyinka wuxuu la mid yahay wadarta tirooyinka oo lagu daray tiro la geliyay kadib markii aan ku soo shubno waxaan leenahay wadarta kadibna aan ku daba qabtay inline balan probeno si aad u jeedin wuxuu weydiiyaa tiro geli waxaan gelshay 2 waxaan gelshay 10 waxaan gelshay 20 waxaan gelshay 30 waxaan gelshay 10 kale si aad u jeedin wuxuu soo saaray 71 koodkeenu wuu saxsan maxaa yeelay ku dar meeqa waa 30 60 70 71 si aad u jeedin koodkeenu waa saxsan yahay
وانا سميني وحي نوغلا باناي بلان ku celsho hal jeer si aad u fahantiin markuu ugu horeyso waxaan qabsaday hal variable kaasoo la dhahayo raadi tirada kaasoo rabno inaan while loopkeena u isticmaalno si while loopkeena oo u rangaloobo 5 jeer kadib waxaan dhahay tiro geli kama carna inaan qofka isticmaalaha computerka aan ugu soo qaadno tiradii uu galshay si aan ugu xarano meeshaan kana waxaan u baahnaa variable-kan inaan ku isticmaalno tirooyinkii la isku soo daray in lagu xareeyo halkan waxaan dhahnay while loop raadi tirooyinka waa meeq waa eber iyo 5 yar eber yar sidaa darteed wuu sahan yahay shuruudan wuxuu soo galaa koodka inta wuxuu leeyahay fadlan geli tiro kadib markuu dhawo waxaa arkaa siin kasoo qaad userka waa la celinaa waxaa leeyahay kasoo qaada leeyahay userka la sugaa ilaa intuu tiro kasoo gelinayo haddii uu tiro soo gelsho kadib waxaa lagu shubayaa tiro la geliyaa lagu shubaa variable-kaas lagu shubaa markii lagu shubo waxaan dhahnay wadarta tirooyinka waxay la mid tahay markastoo equal aragto waxaa la hormarinaa geeskan waxaa leeyahay wadarta tirooyinka oo eber ah oo lagu daray tiradii hadda qofka soo geliyay eber lagu daray 2 tusaale iska dhig qofka soo geliyay 2 waa 2 waxaa lagu shubaa intuu eber laga bedela waxaa lagu shubaa tirada hadda la soo helay oo 2 inta 2 ku jirto kadib waxaa la leeyahay raadi tiro waxay la mid tahay markastoo equal aragtid waxaa ka bilaabaysaa inta waxaa leedahay raadi tiro oo iidana eber ah oo lagu daro hal waa hal intuu eber ku jirto ka bedel halkeeda lagu shubaa waxaa jira qaab kale oo qaabkan ka fudud sida adigoon u baahnayn inaad magacan 2 mar sheegtid waxaa iska dhigi kartaa raadi tiro plus equal 1 sida u jeedin qaabkan iyo qaabkan waa isku mid waxaan ku dhahay qaabkan iyo qaabkan waa isku mid waxaa jira qaab kale oo saddexaad kaasoo asigana sidan u yaalo qaabkan iyo qaabkan iyo qaabkan dhammaantood waa isku mid waxaad isticmaali kartaa mid allaale iyo midkii aad u baahan tahay waxaan rajeynaa inaad kan laakiin waxaad isticmaali kartaa markii uu yahay aad ku daraysid variable-kaaga hal haddii aad hal wixii ka badan ku daraysid waxaad isticmaali kartaa labadan tiro balse marka aad rabto kan special qaas ahaan waxaa loogu talagalay badanaa loopka inaad iskaga fududaysatid waa shortcut oo lasoo fududeeyay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen fadlan haddii aad video ka heshay like saar channelkana subscribe saar mahadsanid